assalaamu calaykum noloshaada weli ma la kulantay xaalad adag oo aad ka labalabaysay go'aankii aad qaadan lahayd kadib go'aankii arrintii ma ka gaadhay laakiin muddo kadib ma ku caddaatay go'aankii aad gaadhay inuu ahaa mid khaldan aadanaha sidiisa wuxuu jecel yahay inuu wax barto noloshiisa oo wax walba uu isagu si iskii ah u tijaabiyo sidaa darteed kama uu fursanayso inaad khaladaad ku dhacdo dhammaan dadka oo dhan ayaa sidaasi ku dhacdaa oo khaldama khaladaadka aan ku dhacayno se waan soo koobi karnaa haddii xaaladda aan dhiraandhirino marka hore isla markaana aan si wanaagsan uga fikirno inta aanan go'aan gaadhin haddaba waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa 5 tallaabo oo muhiim u ah marka aad gaadhiso go'aan khuseeya mustaqbalkaaga iyo noloshaada oo dhan ta koowaad ayaa waxay odhanaysaa kulayli naftaada go'aan qaadashada kulayli naftaada oo ku tababar inay go'aan gaadho xataa waxyaabaha yaryar ee aanay dadku muhiimka u arkin laakiin go'aanka u baahan sida doorashada dharkaaga labiska waxaad doonaysaa inaad daawato in qofku dhibay aad ka aarsato bartaada Facebook ama Twitter-ka waxa muhiim ah waa inaad go'aanada adigu aad si shakhsi ah u gaadho oo aanay cid kale ku samayn oo ayna kula yeelan laba marka aad go'aan gaadhayso ka fakar labadan arrimood marka aad tahay xilliga go'aan gaadhista go'aankaasina uu yahay mid muhiim ah sidii aad wax u yeelan lahaydna aad ka walwalsan tahay markaas ayaa loo baahan yahay inaad ka fikirto laba arrimood oo muhiim ah oo kala ah kow falanqaynta mushkiladda aad ka labalabaynayso talabaadna waxay odhanaysaa saamaynta uu hadhow kugu yeelan karo saddex la tasho dadka kaa waaya aragsan dadka waaya aragga ah waa dad tijaabooyin hore u soo maray oo laga yaabo xaaladaada oo kale inay la kulmeen sidaa darteed waxaad inta badan ka helaysaa talo wanaagsan oo dhaxalgal ku ah afar bedelo badan samee waxa waal ah inaad ugu dambeyn qaadan doonto go'aan kaliya ku khamaarin naftaada u samee meelo ay ku baxsato waxa dhici karta inaad maalgashi ku bixiso lacagaad u far badan sidaa darteed khasaare iyo faa'iido maalgelinta aad samaynaysaa waa ay ku yeelan kartaa 5 mabaadi'daada ha bedelin nolosha marna ha bedelin ha qaadan laaluush cid kale yaana ku iibsan dad kale dhibaato ha u geysan ogow inta badan guulaha ay dadku dunida gaadheen waxay ku gaadheen mabaadi'dooda wanaagsan oo ay ilaashadeen iyo inaanay marnaba hoos soo eegin waxyaabaha aan macnaha lahayn ee noloshooda waxyeelada u geysanaya ugu dambayn haddii aan nolosha ku eegno luqadda fikirka waa mid ku dhisan go'aano inaan gaadhno laynooga baahan yahay alla subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo sameeyey caqliga aan ku fikiri lahayn sidaa darteed ha degdegin alla tala saaro go'aan kasta oo aad gaadhaysana istikhaaro ka hormari waa hubaal in aanad marnaba khasaar haynin والسلام عليكم